السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفتي قيمها مدني كحريان كينان اوفيشال gacmo furan ku soo dhawaada halka ay gala socotaan wayaan keenan official maanta halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa qiso jacayl oo aad u xanuun badan ayna la soo wadaagtay gabar ku xiran YouTube-keena balse intaan u guda gelin qisada ka hor ha iloobin in aad subscribe saarto YouTube-ka haddii aad ugu cusub tahay gabadhan waxay leedahay sida tan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan salaan qiimo iyo wanaag badan u marinayaa dhammaan Soomaali weyn meel walba ay joogaan marka xigta waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku xiran YouTube-ka yaan keenan official anigu da'daydu waa 20 sano ka jir waxaan ku noolahay magaalada Nairobi ee Kenya waxaan weli ahay ardayad dhigata jaamacadda qiso igu dhacday welina qalbiga iga danqisa ayaan go'aansaday inaan bulshada la wadaago si ugu yaraan dhibaatada aan dareemayo iga yaraato waxaan muddo isgaranayn wiil aan jeclaysan inaan halkan magaciisa ku soo qoro waxaan ahayn dad jacayl wadaag ah laakiinse marka xaqiiqada laga hadlo aniga aad baan u jeclaa laakiinse dhankiisa alla ayaa garan kara dad badan ayaa xitaa la yaabay heerka u gaarsiisan yahay jacaylka aan u hayo noloshaydana waxay ahayd mid aad iyo aad ugu faraxsan mar walba aan la joogo ama aan maqlayo aniga waxay dhalay mid ka mid ah ganacsadaha ugu magaca dheer ee magaalada Nairobi gaar ahaan dadka Soomaaliyeed wiilkan aan jeclaa waxaan ogaaday inuusan igu soo raacin jacayl laakiinse hantida waalidkay u danaynayay wax walba oo magaalada ka jeclaado waan siin jiray ilaa naftayda ayaa jecleed haddana asagu ma ahayn mid dhaqaalaha haysta ama reerkiisu wax u hayaan aniga oo taa eegaya ayaa maalin walba nolosha meeshaas ka fiirin jiray laakiinse waxaa dhacay maalin maalmaha ka mid ah inuu ninkii isbedelo wuxuu la saaxiibay inan kale oo dhaqaalaha haysata oo weliba iyada ganacsata ah waxaana ay la socotay in aan xiriir wadaag ahanay aniga isaga waxayna fartay inuu iga raaco ama iga helo galab khamiis ah oo aan balansanayn ayuu xaafadda igu yimid wiilkii waxaana ii sheegay inuu wax jacayl ah ii qabin isla markaasna aanu doonaynin in mar kale ii arko noloshiisa aad baan u qaraacmay waxaan dareemay dhibaato badan oo qalbigayga soo wajahday waan cishooday waan ooyay ku dhawaad bil waxaan ahaa bukaan socod dadaal badan waxaan bixiyay asxaabtayda ayaan la wadaagay arrintii ehelkayda ayaan la wadaagay laakiinse wuxuu u soo sheegay inuu i jecleen balse uu ahaa kaliya mid jaaniskaad ah ama qarash raadis ah helena mid aniga ee wanaagsan maalinta oo hadda laga joogo 7 bilood xaqiiqada aad baan u gubtaa markasta oon dareemo ama markasta oon xasuusto waxaan sameynana ma garanaya balse inaan saaxiib nahay ayaa igu diray arrintan ku dhacday waa arrin la yaab leh mana filaynin inay sidaan ku dambayn doonto balse la wadaag asxaabta qaaliga Soomaaliyeed ee adduunka ku nool sifa aad uga heshid fikrad macnaha qalbigaada dejisa ama aad wax ka faa'iidid sidaas awgeed ayaa maanta halkan ninkuu soo qaybsaday qisadan igu dhacday xanuunka badan oo weligay ilooweynay waxaan jeclaystay Soomaalida inta maqalkayga iyo qoraalkayga soo gaara in ay fikradooda ila soo wadaagaan sifa aan maskaxdayda ku dejiyo waxaan sameeyaa ma garanayo gabadhan sidaan ayay ku soo gabagabaysay qisada jacayl ee ku dhacday ee asxaabta nugu xiran yaan keenan official waxaan ninka codsanaa in aas sii dhahdaan oo la shaqaysataan asxaabta Soomaaliyeed ee wax fikradna dhanka comment ugu soo qortaan maadaama ay tahay taageero ugu xiran ee halkan la socdo wax kasta aan ku soo gudbino aad ba u mahadsantihiin daawashada fiidiyowgan